naxariista janno allaha siiyey cabdi xasan buuni oo horey u ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyey ee dowlad soomaaliyeed yeelato haddana ahaa wasiirka xiriirka golayaasha somalilan ayaa saaka lagu aasay magaalada boorama. marxuum cabdi xasan buuni door weyn ayuu ka soo ciyaaray dhinacyada siyaasadda iyo ganacsigaba, waxaana warbixinta nooga diyaariyay taariikh nololeedkiisii iyo aaska saaka loogu sameeyey boorama wariyaha BBC-da Axmed Saciid Cige. baabuur badan iyo kumanaan dadweyne oo gobolka Awdal ka sokow ka kala yimi Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland ayaa meydka waxay u galbiyeen xabaasha, waxaana ka qayb galay aaska madaxweynaha Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin, gudoomiyaasha baarlamaanka, hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo xubno badan oo ka tirsan baarlamaanka iyo wasiirada iyo madax dhaqameedyo iyo culamaa u diin sida uu xaqiijiyay Daahir Maxamuud Xaddi oo kamid ah aqoon-yahanka gobolkaasi ee qabanqaabinayay aaska marxuumka. sida lagu sheegay qoraal ay soo saareen qoysku Cabdi Xasan Buuni waxa uu ku dhashay Boorama sanadii 1935 isagoo malcaamada iyo waxbarashada dugsiga hoose ku qaatay isla magaalada Boorama. dugsiga dhexe ee magaalada Sheekh ayuu ku dhameystay kadib waxbarashadiisa dhexe waxaana waxbarasho sare oo dhinaca maamulka uu ku soo qaatay magaalada Cadan. sanadihii 1953 ilaa 1958 waxa uu ahaa karaani xafiisyada maamulka ee maxkamada Soomaaliland ee Ingiriisku xukumayay gaar ahaan magaalada Hargeysa. waxa uu kaloo Cabdi Xasan Buuni ka soo shaqeeyay xilligaasi aw bare iyo awaare oo hadda ka tirsan gobolka Soomaalida Itoobiya, laakiin xilligaasi Ingiriisku uu xukumayay. waxa uu Cabdi Xasan Buuni February sanadii 1960 uu ka mid noqday baarlamaankii la soo doortay 33 xubnood ahaa ee dhulkii Somaliland British Protectorate. sida lagu qoray qoraalkana waxa uu goobjoog u ahaa Cabdi Xasan Buuni farxadii dhalashadii calankii Soomaaliyeed ee ugu horreeyay ee xor ah ee laga taagay Hargeysa 26 Juun 1960. waxa uu kaloo goobjoog ka ahaa midnimadii labadii qaybood ee Soomaaliyeed ee Ingiriiska iyo Talyaanigu ay kala gumaysan jireen iyo dhalashadii Jamhuuriyadda Soomaaliya 1 bishii July sanadii 1960 isagoo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyay ee Soomaaliya xilligaasi. Cabdi Xasan Buuni waxa uu siyaasadda uga leexday xagga ganacsiga kadib markii taladii Soomaaliya ay la wareegeen militarigu 1969 isagoo oo beero muuska ah oo ka sameeyay gobolka Shabeellada Hoose iyo shirkad kalluumaysi. waxa kaloo lagu xusuustaa Cabdi Xasan Buuni baar Buuni ee duleedka magaalada Muqdisho iyo hotel Harawo ee Boorama. burburkii dawladii kacaanka kadib waxa uu Cabdi Xasan Buuni u qaxay dibadda, laakiin 1993 ayuu ku soo laabtay dalka oo ka soo qayb qaatay nabadeyntii beelaha Soomaaliland iyo shirweynihii Boorama ee lagu ansixiyay ahdi qarameedka Soomaaliland. waxa uu kaloo marxuumku ahaa gudoomiyihii koox aqoon-yahan ahayd oo 1995 door weyn ka soo ciyaaray nabadeyntii beelaha Soomaaliland. Allah u naxariistay Cabdi Xasan Buuni oo maanta lagu aasay Boorama waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha Soomaaliland laga soo bilaabo July 2003 ilaa 1 June 2009 oo uu ku geeriyooday London. waxa uu ka tagay xaas iyo 15 carruur ah oo isugu jira 8 hablood iyo 7 wiil. Axmed Saciid Cige, BBC Hargeysa.